hore ma u maqashay daawada magaalo ku taal dhulkan korkiisa balse ay adkaatay ka warkanka waxa ku guda jira magaaladan waa magaalo ku qabsatay dahab jin naxaas u meegaarsan hareeraheeda waana magaaladii lagu magac daray amaba lagu magacaabo magaaladii naxaasta waa xiriirka ka dhaxeeya nabiyullaahi suleymaan iyo magaaladan anigoo walaalkan cabdimajiid kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. waxay qisadan magaalada dahsoonida u saaxiibka ahi lasoo hadal qaaday amaba dhankeeda loo kacay xilligii ama waqtigii uu ka talinayay dowladii umawiyiinta ninkii lagu magacaabi jiray cabdilmalik bin marwaan waxaana maalmaha ka mid ah cabdilmalik bin marwaan iyo wasiiradiisa oo sida caadada ah meel ku wada shiraya amaba ku wada sheekaysanaya ayaa waxaa golihii la dhex keenay amaba lagaga sheekeeyey qisadan magaalada naxaasta iyo xidhiirkii ka dhexeeyay nabiyullaahi suleymaan calayhi salaam waxaana ay la yaab gelisay oo cajiib ku noqotay sheekadan magaalada naxaasta ay boqor xilligaa ka talin jiray dowladii umawiyiinta lagu magacaabi jiray cabdilmalik ibn marwaan intaa kadib warqad u diray cabdilmalik ibn marwaan nin u dhawaa dhulkaas lagu sheegay qisada magaalada naxaasta ah ninkaas oo lagu magacaabi jiray muuse ibn nasr oo ahaa amiir madax ka ahaa qaybo ka mid ah dhulalka afrika uu hoos iman jiray cabdilmalik ibn marwaan markii ay soo gaadhay warqadii muuse ibn nasr waxa uu isu diyaariyey ka warkeenka magaaladan cajiibka ku noqotay cabdilmalik ibn marwaan waxaana uu ambabaxay dhankii magaalada isagoo ay ku weheliyeen safarkiisa fardafuulo faraha lagaga gubtay oo ka mid ciidankiisii waxay iskuraanba maalmuhu muuse ibn nasr iyo ciidankiisina ay kusii jiraan safarkoodii ku aadanaa magaalada ayaa waxa ay sheeda ama meel dheer ka arkeen magaalo leh saro ama fooqaq aad u dhaadheer haddii ay usoo dhawaadeenna magaaladii waxa la yaab iyo amakaa ku noqday muuse ibn nasr heerka dhararka magaaladan oo ahaa mid aanay dadi dhisi karin waagaas ama waqtigaas waxayna ahayd magaaladan mid u saaxiib ah oo uu ku wareegsan yahay derbi ama basuur aad u dheer intaa kadib waxa muuse ibn nasr uu ku amray qayb ka mid ah ciidankiisii la socday inay soo indhaandheeyeen oo ay soo ogaadaan albaab laga geli karo derbigan si lagu gudbo magaalada gudaheeda waana ay dhaqaaqeen ciidankii iyagoo baadigoobaya amaba raadinaya albaab laga geli karo magaaladan balse nasiib darro ma ay helin ciidankii albaab laga galo magaaladan waxayna ku qaadatay raadinta albaabka magaaladan ciidankii 6 maalmood oo xidhiidha waxayna maalintii 7aad ka soo noqdeen muuse ibn nasr oo ay u sheegeen in aysan jirin wax albaab ah oo laga galo magaaladan in aysan lahayn halka markii ay arrinku marayay ayaa waxa ay qaar ka mid ah ciidankii muuse ibn nasr u soo jeediyeen fikir u fududaynaya gelidda magaaladan waxaana uu ahaa sida tan in ay iskor saaraan geedo alwaax dhagaxaan si ay ugu fududaato ciidanka gelidda magaaladan intaa kadib haddii ay iskor saareen alwaaxyadii iyo dhagaxyadii waxa la yaab iyo amakaa ku noqotay ciidankii inuu derbigan ku wareegsan yahay magaalada uu ka dheer yahay intii ay u maleynayeen waa ay sii wadeen ciidanka dhisidii biriishka amaba issaarsaarkii alwaaxyada ilaa ay ugu dambeyntii ka sameeyeen biriishka gaadhaya meeshii u sarreysay laakiinse ma ahayn biriish mid ay dhammaan ciidanku wada fuuli karaan ilaa hal qof mooyaane sababtoo ah waxa uu ahaa biriishkani mid ay ka soo horreeyaan dhibaatooyin badani intaa kadib waxa uu muuse ibn nasr isugu yeedhay ciidankiisii waxaana u ballan qaaday ninkii fuula biriishkan kadibna kasoo warramay gudaha ama waxa ku guda jira magaaladan in uu siin doono magtiisa ama diyadiisa haddii uu dhintay iyo haddii uu waxaana isla markiiba arrinka ogolaaday nin ka mid ah ciidankiisii oo ku yidhi haddii aan dhinto magtayda amaba diyadayda sii ciddii dhaxasha kadib ninkii waxa uu fuulay biriishkii markii uu gaadhay figtii ama meeshii u sarreysay derbiga ee ku wareegsanaa magaaladan ayaa waxa uu ku dhaqaaqay ninkii arrin ka fajiciyay baqdina geliyay askartii amaba ciidankii hoosta taagnaa waxaana uu ku dhaqaaqay ninkii markii uu figta amaba halkii u sarreysay derbiga gaadhay inuu qosol la dhaco oo aad u qoslay isagoo weliba sacaba tumanaya oo sacabkiisa isku garaacaya ayaa uu isku guda tuuray magaaladii isla markiiba muuse ibn nasr iyo ciidankiisii hoos taagnaa derbiga magaaladan ayaa waxa ay maqleen amaba ay magaaladii gudaheedii ka kacay oo ka aloosmay dhawaaq aad u xoog badnaa dhawaaqaas oo socday amaba soconayay muddo 3 maalmood ah oo xidhiidh ah dhacdada kadib waxa muuse ibn nasr ku celiyay ciidankiisii dalab ah inuu siin doono diinaar qofkii fuula biriishkan oo ka soo warramay gudaha magaaladan waxaana markiiba aqbalay mid ka mid ah ciidankiisii waxaana uu fuulay biriishkiisna sidii si la mid ah ninkii ayaa uu ku dhaqaaqay oo sameeyay waxaana uu ku dhuftay qosolkii sacabkiina waa uu tumay kadibna waxa uu isku tuuray gudihii magaalada isagoo aan wax wareeg ku celinin muuse ibn nasr waxayna magaaladii isla kacday dhawaaq isna soconayay 3 maalmood waxaana muuse ibn nasr ka xishooday in uu amiirka cabdilmalik ibn marwaan ku noqday isagoo wax xog ah ka haynin magaaladan waxayna mar saddexaad uu soo bandhigay ciidankiisii inuu siin doono 2 diyo ama mag ah ninkii fuulay derbiga magaaladan
ugana soo warramay gudaha magaaladan, waxaana isla markiiba soo booday nin ka mid ah ciidankiisii oo yidhi aniga ayaa fuulaya markan, balse dhexda igaga xidha xadhig si aad dib iigu soo jiidaan haddii aan isku dayo inaan isku tuuro magaalada gudaheeda. Intaa kadib waxa uu fuulay ninkii bariiskii. Markii uu gaadhay halkii uu sarreysay ee derbiga, waxa uu bilaabay ninkii qosolkii iyo sacbatunkii. isla markiiba waxay soo jiiday askartii xadhigga dhexda kaga xidhnaa ninkan, balse waxay soo jiidaba ciidankii ninkii oo isna isku dayo inuu isku guda tuuro magaalada gudaheedii. waxa uu ninkii u kala go'ay laba qaybood oo kala ah, qayb gudihii magaalada gashay iyo qayb xadhiggii askarta soo raacday. sidii si la mid ahna dhawaaqii xooga badnaa ka dhex bilaabmay magaaladii gudaheedii. halkaas markii ay maraysay arrinka ayaa waxa uu Muuse ibnu Nusayr ku amray ciidamadiisii inay iskaga tagaan magaaladan haddii ay xoogaa kasii libdhaan oo ay kasii fogaadeen magaaladiina. waxay la kulmeen Muuse ibnu Nusayr iyo ciidankiisii meel bad ah. intaa kadib waxa uu ku amray ciidankiisii intii dabaasha garanaysay inay galaan baddan oo ay u soo ogaadaan gunteeda amaba waxa ku jira baddan gudaheeda. markii ay galaan qayb ka mid ah ciidankii badda, waxay ka soo saareen weel weyn oo daboolan, shaambadana ay ku taalo. waxaana Muuse ciidankiisii ka dalbaday in ay furaan weelkan, balse markii ay fureen waxaa ka soo baxay nin gebigiisuba uu ku dahaaran yahay amaba qariyay dab amaba olol. waxaana uu ahaa ninkaasi mid fooshan faras uu dab ka soo baxayo, waxaana uu cod sare ku dhawaaqayay ma soo noqon doono nebi allo mar dambe. waxaana Muuse ibnu Nusayr ogaaday in ay yihiin waxani jin uu ku xidhxidhay nebi Suleymaan calayhi salaam. kadib markii ay qaadan waayeen amarkiisii, magaaladana ay tahay mid ay jinku u dhiseen nebiyullaahi Suleymaan, sidaas awgeedna lagu magacaabay magaalada naxaasta. cid kasta oo isku daydana inay ogaato waxa ku guda jiray siraha ku duuganba inay ku adkaanayso gelitaankeeda dadka. muuqaalkana maanta taasuu ka egyahay. intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaalkayga waxaad ku dhaafayaa ammaano Allah.